halkani waa reedab khaatumo. waa degmo xuduudeed ka tirsan gobolka Daadmareed. magaalo madaxda gobolka ee Oodweyne ayay hilaadii 85 kiiloomitir dhanka koonfureed ka xigtaa, halka ay Hargeysana u jirto qiyaas dhan 180 kiiloomitir. maqaaxi geedkan hoosteeda ah ayay magaaladu ka bilaabantay xilli qiyaas ahaan laga joogo 80 gu. nin lagu magacaabi jiray Ballibaax ayaa maqaaxidii u horeysay galoolka hoostiisa ka yagleelay, isagoo habeenkiina dushiisa u hooyan jiray sida ay tibaaxayaan odayaasha deegaanku. kolley waxaan ku hayaa wardhigooda odayaashiga waaweyn baan ka wareystan ku soo gaaray magaalada sidii Xaaji Maxamed Xaaji Waawa oo kale. waxaan xogta hayaa Khaatumo markii hore waxa degan in loo jeeyin Ballibaax wuxuu ka furan jiray meherad. taariikhdaas waxa ahayd 38 ilaa 42 geed galooba meeshu ahayd beesha degto daaqeen baahida magaalo ma jirin. dhulka waxa joogay bah la yiraahdo Bardugaago libaaxa koo ka yahay dadka cuna. ninkaas maalintii wuxuu shidi jiray meheradda, habeenkii wuxuu fuul jiray geedka. magaalo ma ahayne inna xuduudku halka ka yaala Ingiriisku, Talyaaniguna halkaas ka yaalo halkan baandadii taay. waa taas waxa weeyaan waa 82 sano. ninka Ballibaax ayaa horta koo ka ahaa cid meherad ka furta. wuxuu ku baxay siyaada halkan la dhigay inay aan qablaxba bixiyo insha Allah tan waxa weeyaan Khaatumo. waxa meesha reedab Khaatumo loogu bixiyay ku timiyaduna ku dhalatay meesha barwaaqay noqotay. waxay lahayd reedab xoona beesha soo guurtay oo weena laga soo guuray waa la digay iyadoo barwaaqadii sidaan ku hayo waxa juucay sheegay Allah u naxariistee iyadoo beeshu degantay baa nin loo jeeyay Cali Qablax oo beesha ogaadin ka soo jeeda oo sheekh ahaa oo xirwatay ayaa yimi reedabtu fariistay. waxaan doonayaa buuri siyaaro ballaaran ayaan wadaa in la siyaarto. waa la siyaartay si wacan baa loo siyaarto geel iyo aribo waa la siiyey. ka bacdi markaas uu tan waa reedab Khaatumo. barkad ninka qodaxa xiba ugu horeeyay xagga biyaha xagga guryaha xiba ugu horeeyay iyadoo halka taagan wali daaqeenkii ah ayaa ninka la yiraahdo xaax oo reer Oodweynaha ayaa yimi Khaatumo. barkadda nimkay nagu dhaw agteeda aynu taaganahay ayuu ka aasaasay. Allah u naxariistay Xaaji Waawa oo ahaa odaygii magaalada dadkii ugu mudnaa ahaa. wuxuu igu yiri hudheel baan ku haystay meesha la gudubi. ninkaan injineerka barkadda sameynaya waxaan soo dhibi jiray buuri. wuxuu igu yiri waagi bariyabayaan waayn wasrad hilib oo garab ah gaari ma jirin. inankaas uu la soo lugan jiray wasrada hilib saddex bishana waa loo keen jiray. inankaas wuxuu qaadan jiray wasrada sixirkeeda oo lacag wuxuu xaaxi markaa barkaddu waxay lahayd biro wada qasabadaas loo sariic caqaayado 7 caqaayadood baa saarnaa birano way saarnaayeen. waxa lagu markii farta laga qaaday gaari la dulbay barkadda albaabadan xadiidna way saarnaayeen oo shubaa dusha laga shiyo shubaheed. anigu waan ku soo gaariyay caynkeedii oo garantiina halka masaajidka dhinaciisa wuxuu ka furay muqaaxi wadaadada isku reedihiin oo la yiraahdo Maxamed Qardajeex ayaa meheradii ugu horeysay isaguna halka ka furay. say magaalada horta ku dhalatay marka hore waa sidaa. waxa ay noqotay taariikhdaas waa kotonkii la degay. magaalooyinka ugu faca weyn leh ee ugu mudnaa ee Xisbillaahida waxay ka dhalatay waxa laga tagay calanka Laamilaaxo iyadoo waxay talabaad. taariikhdaas ay lahayd daartii ugu horeysana wuxuu baa dhisay isla xaaxi baadana ka dhisay halka guri daara oo halka imkeedii ka muuqdo burbursan oo masaajidka ku xiga ayay daartii ugu horeysana ahayd. saasa magaalada lagu degay. gudoomiyihii ugu horeeyay markaa magaalada gudoomiyaha ka noqday wuxuu ahaa nin loo jeeyo Hadoodil in Cismaan Shariif oo nin karaamo lahaa oo sharaf leh oo goba ayuu ahaa. waxaan taariikhda ku hayaa oo kale 64kii waxa halkan ka dhacay diyaarad rushaysay. halkan geed baa ku yaalay galool ah oo halka dhuxushiisa ka muuqato. geedka galoolka markii diyaaraddu soo wax ku riday magaalada ayaa lagu soo yaacay rag ku jiro 5 baa ku jiray 4 baa ku jiray
nin marya cadcad ayaa soo cararay ninkii geedkiibuu soo galo bartii bay ku dhufatay madfac shantii nin way dhinteen magaalada waa laga yaacay shantii xabaalo waxaa looga qoday ayga waxa la magaalada ku askar mayno 4 bay taariikhdaas ilaa 1942 iyo ilaa iyo maanta iyo ilaa iyo 2008 inta waxayd magaalo tuulaha ilaa 2008 iyo ilaa 2021 waxay ahayd degmo degmadu waxay leedahay dhinaca waraabka ama biyaha maadaama nolosheedu biyo ay ku xidhan tahay 3 baliyo waaweyn saddexaasoo aad u fac weyn halkan waxaa ku yaala xuduudka dhinaciisa magaalada dhinaceeda bari dhaam laga qoday ama balli laga qoday imaka ingiriiskii markii xuduudka la jeexayay waxaa ka yara shisheeya balli weyn oo imaka dhaamka magaalada la yidhaahdo oo isagana xilligii Soomaaliya la sameeyay oo la dhisay ilaa guriyihiisa ilaa systemkiisa oo aanay runtii jirin deegaano kale ku yarihiin area-dan ama xuduudka ama Somaliland gudaheedaba ay ka dhisay uu ka sameeyay hay mid noocaas oo kale 3 balli oo kaliya qaabka uu dhisan yahay waa taariikhda ilaa xilligaas iyo balligan weyn ee dhinaca galbeed ee ku magac dheer balli suule cidda ka aflaxday ee wax ku soo baratay goboladii la oran jiray nimankii fanka ahaa ee la oran jiray walaalaha Hargeysa isu rogay markii dambana gobolada waa bari koob iyo toban ka mid ahaa inta wax ka baratay halkaas halka u dhalatay haddii aan taariikhda khaatumo halka hadda ugu yar noqdo waxay khaatumo caan ku tahay oo aan idinku cadaynayaa waa meesha ay ka soo baxeen fanaaniinta ugu badan ama abwaaniinta haddii aan tiriyo cali sugle reer khaatumo gurigiisu ku yaala haddii aan tiriyo ismaaciil cabdi basbaas wuu yaalaa reerkiisu magaaladu yaala haddii aan tiriyo ismaaciil cagaf oo la wada yaqaano oo abwaan ahaa waxa uu reer khaatumo original u ahaa haddii aan tiriyo maxamed axmed kuluc oo la yaqaano fanaaniintii waaweyneed ahaa waa beri reer khaatumo ahaa guryahoodii barkaduna ku yaalaan ninkii la odhan jiray sulb cumar oo heestan tidhahda roobkii helay reedab khaatumo lagu marheeyo wayna kala raray alufay isagu hala sii kordhiyey markii dambe reer khaatumaa sulb cumarna waxa weeye waxa la yidhi sulb wuxuu ahaa markii hore horta askari dabeedna waxa la geeyey meesha la yidhaahdo duruqsi markii la geeyey daabaduhu way isku guuri jireen beriga hore feermiyiguna wuu guuri jiro daaqsato ahaa dabeed isagoo jooga duruqsi baa roobka helay khaatumo kusoo simay roobka dabeedna way camirantay daabaduhu way soo guuriyeen mulaaxa u soo guurtay duruqsi u soo guuray goryaxun baa u soo guurtay ilaa iyo xaasal waxa soo guuray dabeedna inantii ay sheegeen markaa inan bay isjeclaayeen baa lagu sheegaysan jireen inantii dabeedna khaatumay timi dabeedna war hiblaayo meeday buu yidhi inantii meeday meheraddan haysto waxaa la yidhi khaatumay guurtay oo maxaa ka daayay roob bartaasuu kaaluu soo dalbana wuxuu yidhi roobka helay reedab khaatumo lagu marheeyaan wayna kala raray waxaan u joogay anigu imka 4 sano maraya 4 sano wixii nagu horreeyay intaan ku sheegay elbostiga iyo dawladda hoose anaga inta noo qabsoontay MCH waan u meesteranay darsidii diiniga laba waan dhisanay
dhaamamkii bar waan qodanay barna iminkaan tacabkoodii ku jiraa way noo korodhay deerarkan iyo guryahan dadweynuhu wadooyin waanu la baxnay janyalaaye oo burco ah waddo burco ah mid kaloo maxamed faarax oo magaalada yarooyinka la sameeyey tan gudi baanu kala barka ka hadnay xuduudkii oonu soo dunay waddadii raacisay oonu goondhaalo gelin oo iyadana samaynay caafimaad ahaanna wuu noo dhamaystiray msajkii ma garatay baraaga waanu samaynay danguuda wax dadgaaru kala leeyihin iyo wax ummadda ka dhexeeyaba afarta qodoba imika baahideeda noogu daranay kow degmada iskuulka intaa jiray ilaa ingiriis dugsigii dhexe ma hayno afartii galaasa laba dee degmo weyn baanu qof kasta oo dembi ka gala halkan maxkamad degmo oo oodweynaah ayma la doonana dee degmaanu soo maaha in maxkamaddii degmada aanu helno oo halkii kasta loo marayaba aanu soo dhaweyno maxkamadda degmada waayo dhibkaa yaraanaya haddii sharciga la soo dhaweeyo wuu yaraanaya dhibku iyo horumar la-aantuba waa laba safaynkii oo noogu ajisman garaysan bisha 12aad ee sanadkan wuu ka dhiman yahay waa baahi saldhigga oo laba maqsin buu ahaa in leeg baan ku darro isku siidaysa u baahan intaa in leeg iyo deer oo ah goobta nabadgelyada baahida noogu weyni maanta ee la taaban karaa way jiraan baahiya yaryari baahida degmada ugu ballaadhani waa afartaa